kusoo dhawow qaraax tube fadlan subscribe dheh waxaad ka helaysaa macluumaadkii ugu dambeeyay kubadda cagta iyo sheekooyin kale. Faransa vs Croatia finaalka koobka adduunka ee 2018 ayaa maanta la soo gabagabeyn doona saacada dhankeena marka ay tahay 12 saac oo maqribnimo. xulalka kala Faransiiska iyo sidoo kale Croatia ayaa ugu dambeyn soo gaaray finaalka kadib markii ay soo mareen wada dheer. labadan wadan ayaa maanta ciyaari doona finaalka koobka adduunka ee 2018 waxaana la ogeyn xulka ku guuleysan kara. Faransa ciyaaryahankooda qadka dhexe Balasie Matuidi ayaa ku soo laaban doona ciyaartan kadib markii uu seegay kulankii ay la ciyaareen xulka qaranka dalka Belgiumka. Balasie Matuidi ayaa dhaawac soo gaaray kulankii Belgium iyo sidoo kale Faransiiska kadib markii ay isku dhaceen isaga iyo Hazard. dhaqaatiirta xulka qaranka dalka Faransiiska waxa ay sheegeen in wali aan warcad laga soo saarin xaaladda ciyaaryahankan. tababaraha xulka qaranka dalka Croatia ayaa ka murugaysan xaaladda dhaawac ee soo gaaray qaar ka mid ah ciyaartoydiisa. garabka Ivan Perisic ayaa lagu soo waramayaa inuu seegi doono ciyaartan kadib markii uu ka maqnaa tababarka xulka qaranka dalka Croatia kulankii tababarkii ay sameeyeen Jimcadii. waxaase lagu dadaali doonaa sidii xidigan ay ku heli lahaayeen xulka qaranka dalka Croatia. Marcelo Brozovic ayaa suuragal ah inuu bedel u noqdo ciyaaryahanka lagu magacaabo Ivan Perisic. Ivan Rakitic ayaa ciyaaray 120 daqiiqo kulankii ay la ciyaareen xulka qaranka dalka Ingiriiska iyo 2 kulan oo ka sii horeysay. ciyaaryahankan ayaa dareemaya xanuun dhanka beerka ah laakiinse wax cad kama soo saarin xulka qaranka dalka Croatia. ugu yaraan 5 ciyaaryahano ayaan xaaladooda la ogeyn kuwaas oo ah leenaabka koowaad ee xulka qaranka dalka Croatia ka hor intaysan la ciyaareen Faransiiska. tababaraha xulka qaranka dalka Croatia Dalic wuxuu sheegay in heerkii ugu dambeeyay hadda ay marayaan guushan wax walba ay u sameyn doonaan. waxaa jira xoogaa saf spirit ah kuwaas oo awood u leh inay ku socon karaan buuraha. waxaa sidaas yiri Didier Deschamps. ciyaartoydeena daayarada ah iyo qaar ka mid ah xidigaheena awoodda badan ayaan kaashan doonaa ayuu yiri. diyaar garow adag ayaan ku jirnay 4 sano ee ugu dambeysay. waxyaabaha gaarka ee kulankan laga soo calaamadeeyay waxaa ka mid ah Faransiiska lagama badin 5 kulan ee ugu dambeysay ee Croatia wajaheen 3 jeer waa ay badiyeen 2 jeerna barajo galeen ka hor guulahaasi. Faransa ayaa hadda imaanaya finaalka koobka adduunka sidoo kale waxay xusuustaan 2 gool iyo gool in semifinaalkii 1998 ay kaga badiyeen xulka qaranka 2 gool oo uu dhaliyay halyeygoodii Lilian Thuram xilligaas oo safanayay kulankiisa 142. xulka qaranka dalka Croatia ayaa markii ugu horeysay soo gaaray finaal koob adduun. waxay doonayaan inay wacdar sameeyaan iyagoo wata ciyaaryahano maskaxiyan kubadda cagta wax badan looga haray. qadkoodii dhexe ayaa aad u dhisan markay ku kulmaan Luka Modric iyo xidiga lagu magacaabo Ivan Rakitic. sidoo kale Croatia waxay haystaan difaacyo ka ciyaara horyaalada kala duwan ee qaaradda Yurub. weeraryahankoodii dilaaga ee Mario Mandzukic ay sidoo kale haystaan kaasoo dhaliyay goolkii guusha kulankii ay wajahayeen xulka qaranka dalka Ingiriiska. ciyaartan waxay soo galaysaa dhanka Soomaaliya 12 saac oo maqribnimo. caawa ayaa la daawan doonaa. qaybta hoose ee commentiga ayaad kaga bixin kartaa saadaashaada kulankan u dhaxeeya Croatia iyo sidoo kale xulka qaranka dalka Faransiiska finaalka koobka adduunka ee 2018. waad ku mahadsantahay daawashada videogan. fadlan ha ilaawin like iyo share kadibna inaad subscribe. mahadsanid.